muqdisho ka socota isugu jirta idaarada sare iyo cumadada iyo macallimiinta qayb ka mid ah iyo ardayda guddiga ay soo dirsadeen saxaafadda inta ka soo wada qayb gashay arrintan oo dhan waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ujeedka barnaamijkan loo soo qabanqaabiyey oo aad arkaysaan boorka ku qoran waxa uu qayb ka yahay mas-uuliyaadka saaran mujtamaca Soomaaliyeed si guud mu'asasa kasta oo jirtana si gaar ah u saaran waxaan ognahay inay waddanka ay ka jirto abaaraha fara badan ku haya oo dad fara badan dhibaato gaarsiiyey biyo la'aan iyo cunno la'aan intaba ayadoo laga ambaqaadayo hadafka jaamacadda ama jaamacad walba ay leedahay oo ah dadka inay wax barto in research ay samayso iyo inay bulshadeeda u khidmayso kan ayaa waxa uu soo gelayaa khidmadii bulshada loo qaban lahaa markana aan soo dhaweeyo الدكتور البروفيسور محمد حسين عيسى ليبان نائب الرئيس للشؤون العلاقات فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد السادة العمداء مدراء المكاتب المسؤولي الطلاب الممثلين للطلاب ضدك صحافة ضمان مسؤولين تكلا دوين جامعة وحن لا يحي مانتا ومالين تاريخي أو كمدة هوله جامعة أي قبان جرتي يعني سجون نمي أو إن أي جامعة يضع حدا ودا جرتا أو ك institution sidee mu'asasa uga qayb qaadanaysa dhibaatadan jirta ma aha dhibaatadan hadda bilaabatay inay jaamacaddu hadda ka qayb qaadanayso ama hadda midaan dambaba ay hadda ka qayb qaadanayso yani xiriiradeeda iyo ka qayb qaadashadeeda way jiray ala mustawa maamul iyo mustawa kale way jiray laakiin ka bahda jaamacadda oo urursan waxaa jiray arday si gaar ah wax uma taqaana u sameyn jiray waxaa jira macallimiin si gaar ah nin walba qoysaskiisii iyo waxyaalahiisii uu sameyn jiray laakiin sidii caadada noo ahayd ee jaamacadda sunnana u ahayd in markuu xadadkan uu kala uu dhaco ummadeena uu ku yimaado inaan anagoo isku duuban oo qoyska jaamacadda Muqdisho wada ah ha noqoto arday wax ka dhigata ama kuwa ka baxay ha noqdo macallimiin maamul cumado iyo dhammaan iyadoo shaqaalaha jaamacadda loo kala harin iyo asxaabteedaba in si isku duuban looga qayb qaato loogana jawaabo ayay ujeedada ugu muhiimsan la isugu yimi ay ahayd marka arinta la isugu kin yeeray waa ka fariintaas inay gaarto dhammaan bahda jaamacadda Muqdisho inay gaarto arday kasta fasalka ugu tagto qoys kasta oo mataqaana oo bahda jaamacadda Muqdisho kamidana ay ugu tagto meeshiisa ugu tagto oo ardada dhinacooda u marto macallimiinta ay u marayaan iyo qoysaskooda asxaabta iyo dadkii ka baxay u marayaan ujeedadu nidahaas marka waa nidahaas ayaa loogu talagalay wixii farsamo ah sida loo samaynayo iyo waxyaalaha hadda ma aha meesha waxaan uga hadlayno laakiin waa fariinta in la isgaarsiiyo kaalimaha la kala qaato ayaa ugu muhiimsan wixii kale laakiin waxay ka dhacaysaa meedaanka iyo guddiga oo jaamacaddu oo gudoomiyaha oo aan aad ugu faraxsanahay inuu soo gaaray hadda isagoo airportka ka yimi oo si toos ah u yimi marka waxa yani ahmiyadda ay leedahay nidahan darteed ayaan mataqaanaa u mahadcelinayna waxa kale oo la jooga yani al-professor al-sheikh الدكتور أحمد القطبي أو شيخ علامة أو اللي يقان أو يعني مستشار الرئيس أنا أنت أصلا وحن وفرصة وين أنت وحل يسويمي أهمية إلى هاي مانتا إن المنطقة وضع درينه مركا كلمات دي يو برنامج كي منطقة إن شاء الله قدوميها جامعة دا يا بروفيسور الشيخ أي إن شاء الله يعني جنو جيدين دونا مركا جزاكم الله خير أنا وحن إذن الله يا فرنت أقول مهم سوا حوي وحي أنت أن كقادنو إن سي الشعور له أن أقادنو أو أن اسكت دينو إن كتبينو سيدي نلقو يقاني سنديه هربا يعني كالم بوحدة أنا أقصى بحني حدنا إن أنا أقصى بحنو ماشي يميل كفي عن
cilmi baaris iyo seen laga yeelina waa wax noo wada taal ummadda dhan u taal aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib aad iyo aad bay jaamacatu muqdisho iyo ragga wado ra-iiska laga bilaabo ilaa waxaa kulligood ay u mahadsan yihiin dadkii hore si ay u sheegeen waxaa weeye jaamacadda in badan baynu ka qayb gallay kulankan oo kale ama fatahaad ha dhacdo ama abaara ha dhacdo weligeed ummadda meesha loogu gargaarayo jaamacatu muqdisho kama ayna gaabinin marka sidaa daraaddeed waa sunnadii man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama min gayri an yuqasa min ujuurihim shay-an siduu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wassalaam waa sunno xasano ah marka hadda liisuma sheegayo dadkani waa mutacalimiin bini aadam oo dhan hataa xayawaanka walow hadduu bini aadamka ama muslim ha ahaado ama xataa yuu muslim ahaanina siduu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wassalaam kullu kabidin radbin fiihi ajr waxaa nafley oo beer qoyan ku jiro oo dhan waxaa weeye fiihi ajr marka sidaa daraaddeed iyo axaadiista nabigeenna calayhi salaatu wassalaam ayay waan arki doonaa miithaal baa xayawaankii la inoogu soo qaatay marka xayawaankiiba haddii sidaa la leeyahay dadkii bini aadamka ahaa ilaahay uu yidhi walaqad karamnaa bani aadama maxaad u malaynaysaa marka sidaa daraaddeed waxaa weeyaan 3 qodob baan ka hadlayaa midka ugu horeeya waa inaad muxuu ahay dadka muslimiinta ay isu danqadaan innagoo markii horeba waxaa weeyaan la welwelaynay oo hurdadu inay naga tagto aan ku siganaynay waxa lagu dhigayo shacbiga suuriya iyo waxa ka taagan waddanka ciraaq khaasatan dadkii ahlu sunna waljamaaca la dhihi jiray muxuu ahay naynawa iyo mowsil iyo muxuu ahay dad xaaqidiin oo shiica ay cagta marinayaan iyo haddana gondaheenna unbaybay ka dhalatayoo waaba ka dadkeenna laleeyahay muxuu ahaayey abaar baa meel walba ayaa muxuu ahay ka haleeshay taasi waa midda waxaa marka maadaama ay sidaa tahay nabigeenna calayhi salaatu wassalaam wuxuu yihi man lam yahtama biamri lmuslimiin hadda ma aha kuwa inagu hadda muslimiintaa guud ma nihin waxaa weeyaan waxaan nahay dad arxan oo wada dhashay oo isdhalay oo iswada dhalay ayaynu nahay marka muslimkii guud baa laga hadlay man lam yahtama biamri lmuslimiin falaysa minhum ka mid ma aha qofaan ummadda islaamka iyo dhibka haysto aan la danqanaynin oo la xanuunsanaynin oo habeenkii aan sariirta isku gadgadinaynin markuu telefisyoonka ama khabar mu'lim ah oo mu'miniinta ku dhacayo markuu arko iska caadi un iska socda kaasi waxaa weeye damiirkiisu xay ma aha taasi marka waa midda kale nabigeenna calayhi salaatu wassalaam isagoo cabiraya sida aan nahay wuxuu yidhi tara almu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa taraaxumihim kamathali اljasadi اlwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'ira اljasadi bisahari wاlxumaa waxaa weeyaan xadiidka macnihiisa waa la garanayaa mu'miniinta waa jismigeenna keliya hal jismi weeye marka jismigaasi haddii faryarada ugu yar caawa haddii ay ku xanuunto ay ku dikaamiso ma odhanaysa faryara adigu keligaa iska xanuunso aniga inteeda kale waan iska seexan ma dhihi kartaa mise fartaa yara deg ku leh yaa hurdadii oo dhan kaa kaxaynaysa marka muslim markii meel lagu asiibo waa in muxuu ahaay aad sidaas aad adigana ula xanuunsato oo hurdadu kaa tagto waxaa dhici karta marmarka qaarkood mu'miniinta aad la gubanayso walow rohiniyaana ha ahaadeen oo minimaad inay kaaga fadli badantahay salaatuleyl aad tukato maxaa yeele qalbigan qoyan waxaa irxamuu man fi lard yarxamkum man fi samaa'i laa yurxam laa yurxam man laa yarxam qofka oo naxariista laga siibay naxariis ilaahay agtiisa kama u helayo sidaa daraaddeed waynu arkaynaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iska dhaaf bini aadamkii xayawaankii ayuu muxuu ahay mathal inugu siiyey oo tan ugu horaysa ay tahay si aad u ogtihiin qof dumara oo reer banu israa'iila oo dadka xunxuna oo jidhkooda ka ganacsado ayaa ey ooman ayay waraabisay markaasuu ilaahay u dembi dhaafay wixii dembi ay ku jirtoo dhan ey soo xayawaan ma aha ay waraabisay
yaa ilaahay ugu dembi dhaafay maxaad u maray qof muslima oo soomaali ah oo xaafidulqur'aana ilaan bay iyo bakool meelaha qur'aanka ugu badan lagu xifdiyo weeye qofkii waraabiyo maxaad u malaynaysaa markaa qofkaasi muxuu noqonayaa marka taasi waa midda kalena qof iyadana reer banu israa'iila oo naxariistii ay ka guurtay oo bahashan muxuu ahay bisada xidhay oo aan biyana siinin baadna siininna naarta ayuu ilaahay geliyey marka sidaa daraaddeed waxaa iska dhaaf bini aadamka xayawaankibaa sidaa ah waxaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum waxa aan ku noolahay ee ilaahay cadaabka iyo wixii nagu degi lahaaba uu nooga hayo waa biducafaa'ikum hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum marka ducafadeenni iyo dadkii taagta daraa inaan halmaano ma aha marka ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu naga kor qaado muxuu ahaayey dhibkan oo ummadda ku dhacay wuxuu ugu dhacay anigana waxaa waa waxaan inagu kasbana weeye wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir maxaa yeelay dhiig baa qubanaya maalin walbo oo ummad islaama ayaa muxuu ahaay la halaagaya meelu dhiig ku daatayna waxay roobna ka di'i maayo khayrna lagama sugaye ummadda marka haddii ay rabto ilaahay inuu subxaana wa tacaala uu u nusreeyo waa inay dulmiga ay ku jiraan oo mid dhaqaalo ah oo mid siyaasi ah inay ka dhexbaxaan oo ilaahay toobad nasuuxa loo soo noqdo sidaa ayaanu ku talin lahayn wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa jazaakum allahu khayran dadaalka maamulka jaamacadda macallimiinta hormuudyada ardada ay dhiibayaan ee wiigagan oo dhan ay wadeen dadaalkaas aad iyo aad baan uga mahad celin jazaakum allahu khayran wax la yaab la ma aha horaad u soo samayseen inaad samaysaan ummaddeenna aad hormuud u tihiin marka inaad dadaalkaa bixisaan wax qariiba ma aha insha allahu tacaala halkaa inaad kasii wadaan ummadaha dhibaatada weyn ee ina haysata iyo ceebta weyn ee 20 sano inagu dhacday ayaa waxay tahay haddaad gobollada hadda meelahay abaaradu ka dhacday iyo qof kastoo hadlaya walow ilmo yar baa hadlay oo telefisyoon ka hadlaya wuxuu leeyahay beesha caalamka waxaan ugu yeedhayaa inay noo gargaarto waa hadal xun oo liita oo qiimo daran oo 20 sano soo baxay waa shacbiga Soomaaliyeed isaga isu gargaari kara isaga isu kaalmeyn kara shucuubtuna waa sidaa marka caalamka kale marka wuxuu ka dambeeyaa inaga gargaarkeena inaga isu gargaarna waxaan qaban weyno ayaynu caalamka marka ay tahay dawladii iyo ummadii matalaysa shacbiga Soomaaliyeed iyo dadka maartay inay alla hadlaan laakiin ilmo yaro ciyaalihiba hadduu gobol kasta kii hadlaaba uu yidhaa beesha caalamka hadal xun weeyo in looga digtoonaado oo aad iyo aad uga fogaano u baahan aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad u baahansan tihiin ololahaas halkaasaad kasii wadaysaan waxaan ku dhawaaqayaa biidn illaahi tacaala hadalkii culimadaa soo wada tiri oo soo dhammaadeen inaynu ololo xoog leh jaamicatu muqdisho iyadoo kaashanaysa saan hore u sheegay asxaabteeda dadka wanaagsan ee Soomaaliyeed dhammaan shacbiga Soomaaliyeed gudi iyo dibadba iyadoo kaashanaysa maanta laga bilaabo inay u xaydatay inay shacbigeeda wax alla waxay u qaban karto mararka qaarkood kolkay dhibaatadan oo kala dhacdo xataa daraasada la joojiyaa daraasada maanta tana ka fadli badan in daraasad la dhigo waxa ka fadli badan in loo gargaaro dadka Soomaaliyeed ogteen lagu soo shubayo hadda aad aragteen social media la soo dhigayo nooca ay yihiin iyo kuwa dagaagaya ee socdo ee moodi maaragtay maxaan ku dhahay xayawaan socdo aad moodayso oo qalale oo dadba u ekayn dad nool xayawaan waxaan ka wadaa dad nool ba aan u ekayn oo inay dad yihiin iyo inay sii jeedaan inay soo jeedaan la kala garanaynin daraasada in loo joojiyay istaahishaa oo la hakiyo muddo la hakiyo si aynu qayb weyn uga qaadano xoogga dadka bixin kara ogtiin abaarihii hore waxaynu diyaarinay dhowr boqol oo arday oo volunteer oo ka qayb galay hay'adaha kala la qaybiya waxay hayaan hay'adaha la qaybiya oo xoogooda sadaqaysta kuwa lacagta iyagoo lacagta bixinaya dana xooggeena inaan sadaqaysano maxaa yeelay waxaynu haynaa kumaankum arday ayaynu haynaa marka sidaa daraaddeed waxaa inoo furan laga bilaabo saacadan ololihii u gargaaridda shacbiga Soomaaliyeed ee dhibaataysan ayaa saacadda laga bilaabo inoo furan si sharci noogu furan biidin illaahi tacaala waana ku guulaysanaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay inaga soo abaarta inaga soo bixiyo dhibaatada inaga saaro gaajada inaga saaro
ilaahay qalbigeenniibaa abaaroobay marka inaynu ilaahay ku kalsoonaano subxaanahu wa tacaala inaan nafteenna ku kalsoonaano ilaahaynana ku kalsoonaano dalkeen iyo dadkeennana aan ku kalsoonaano maalinka sabtida ah waxaa laga sheegay in salaad kuliyadaha oo dhan jaamacadda salaad istisqaa la tukan doono kuliyadaha maadaama hal meel la isugu keeni karin kuliyad walba inay meesheeda ku tukanayso marka taasna ardada iyo macallimiinta iyo maamulka iyo dhammaan ha laga wada qayb qaato iyo qof kasta oo la keeni karo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan maaragtay isu jilcinno oo inu gacmaha u hoorsanno isagaa inagu filan oo inagaga filan inta kale ee loo qaylinayo ee la leeyahay noo soo gurmada ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa inagaga filan aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran ilaahay fii miisaani xasanaatikum ha ka dhigo ha la gaadhsiiyo fardan ardada jaamacadda maamulka macallimiinta dhammaan ha la gaadhsiiyo ruux waliba wuxuu kari karo kii dhar kari kara dharkaad ka baxdeen ee maaragtay maxaan ku idhaha idiin yaalla kusoo tabaruca oo kusoo dara halkii dollar kusoo dara waad og tihiin markii 2006 fatahaadii ay dhacday ardadeenna waxaynu nidhi $1 iyo jawaan fatahaadda ciidda lagu qaado arday waliba ha keeno waxay qabatani waad og tihiin oo waad ka warhaysaan marka in kasii badan baynu maantana qaban karnaa marka xoogeennana aan sadaqaysanno ilaahayna aan barino subxaanahu wa tacaala waxaan haynana aan bixina hadday dhar tahay iyo hadday lacag tahay guddiyaalna ha la saaro waxaa kala qabanaya hadday dhar tahayna qabta hadday lacag tahayna akoonna la furo dadka dibaddiina ilaa saacaddan hadda xalay kolkaan idiin sheegaya podcast way weydiinayaan dadka Soomaaliyeed ee wanaagsan meel walba ka soo hadlaya akoon ma leedihiin laano cid lagu aamino ayaa in badan la leeyahay marka akoonnadana iyagana la wada diyaariyo aynu gaarsiina dadka maaragtay maxaan ku idhaahdaa si ay ugu soo diraan qof kasta oo jecel dadkiisa inuu wax u qabto aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu